رمضان مبارك kusoo dhawow channelka taqwo Soomaaliya channel oo ka daawan doonta soddonka beri Ramadaanka maalin walba qisad cusub iyo nabi cusub waxaana la baran doontaa oo la daawan doontaa maalin kasta nabi cusub qisadiisa aana la daawan doontaa la wadaag asxaabtaada iyo dhammaan familkaaga like na saar subscribe na saar commentigana hoos ku reeb السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelka taqwo Soomaaliya channel meel walba joogtiin waan salaami dadkii habeen u tahay habeen wanaagsan dadkii maalin u tahana maalin wanaagsan maanta iyo hadduu ilaahay yiraahdo subxaanahu wa ta'aala qisad cusub xalad waxaa ka hadalnay qisadii nabi Allah Shucayb alayhi salaam iyo miisaanka iyo wax kasta ka hadalnay ciqaabka soo diray ilaahay qoomkiisa maanta hadduu ilaahay yiraahdo waxaa ka hadlaynaa qisada nabi Allah Ayub alayhi salaam oo badin loo wada yaqaano nabiga oo sabray maanta hadduu ilaahay yiraaho waxaa ma aqli doonaa amba ila maqli doonta amba ila bari doonta hadduu ilaahay yiraaho Ayub alayhi salaam yoo yahay iyo maxaa ku dhacay iyo ibtilaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ka ibtilaa'ay iyo naagtiisa maxay samaysay iyo maxaa ka istafiidi doona iyo waxyaalo badan oo fiican insha Allah la wadaag asxaabtaada iyo familkaaga dhammaan Ayub alayhi salaam wuxuu galaa bani Isxaaq oo galaa kadib wuxuu galaa durriyada Ibrahim alayhi salaam sidee aayadda kariimka ee u dhahday waman durriyatuhu Daawud Sulaymaan wa Ayub wa Yusuf wa Muusa wa Haaruun Ayub alayhi salaam wuxuu qabay amis kale waxaa guursaday gabar oo ilma adeer yihiin gabadha oo Yusuf alayhi salaam Yusuf bin Yaqub alayhi salaam labadooda marka nolosha Ayub ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ayub wuxuu ku nimceeyay irsaq badan ilaa oo ka heestay yani irsaqa markaas xilligaasi oo xilliga Ayub alayhi salaam irsaqa dadka heestan dhan woo heestay iyo lacagaha isticmaalayaan xataa woo heestay marka irsaq ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo siiyay min ila yani irsaq aad u badan oo siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaad badan oo siiyay caafimaad oo siiyay wax kasto oo siiyay laakiin irsaqaasi iyo waxaasi dhan tartiib ee ugu dhamaanayeen li'anna imtixaan iyo ibtilaa soo jiray marka nabi Allah Ayub alayhi salaam 7 sano oo dacwada ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo faafinayay yatiinta woo kafaala qaadayay qofka dayuuf ee wuu akramayay ambiska loo soo dhaweynayay weligiisa ma seexan soo qof baahan tahay soo ogeyn ilaa meelaha oo ogaada inay qofta baahan tahay qofta baahi hees inuu wax siiyo yani aad nabi oo wuxuu ahaa dacwadiisa iyo khayrku ilaahay siina wuu bixi jiro markasto marka Ayub alayhi salaam mar walba way ka muuqan jirtay ilaahay irsaqoo siiya iyo barakadiisa mar walba ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku shukri jiray laakiin wax kasta imtixaan waaye fa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu rabay cabdigiisan inuu imtixaano inuu ogaado maca ilaahay subxaanahu wa ta'aala daahirka iyo baatinka uu ogaa laakiin maca dalik ibtilaa jiray sida aayadda kariimka ee u dhahday inna wajadnaahu saabiran ni'am alcabd innahu awaab markoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo siiyay yani nicmada oo nimcooyinka oo ugu nimcay dhinac walba oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku guuleystay asagana Ayub alayhi salaam inuu ku guuleystay ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar walba oo shukriya ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku imtixaanay 3 ibtilaa oo kale oo ah awlaadiisa iyo caafimaadkiisa iyo maalkiisa marka koowaad wuxuu ka baaba'ay ambas kale ka dhamaada maalkiisa kadib awlaadiisa kadib oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaadkiisa ku ibtileeyay marka Ayub alayhi salaam aad u xanuunsanaa jirkiisa ku xanuunsanaa caafimaadkiisa wuxuuna xanuunsanay 18 sano markay arkeen Ayub alayhi salaam dadka inuu baaba'ooyo oo waxba oo heesanin way ka wada tageen laakiin waxa u joogtay xaaskiisa mar walba garab taagneed mar walba wax kasta ee sameey jirtay sida daawadiisa ugu keento marka zawjada Ayub alayhi salaam
mar walba ku dhibtoo jirta ilaa waxaa la dhahaa dad yani culamo amba meelo waxaa lagu soo qoray inay oo zawjadiisa gaartay xilli ambiskale ee gaartay inay dadka xataa ay u shaqeyso sidee u saacido ambiskale ay ku caawiso ninkeeda xanuunsan ee daawo u keenta ee wax kasta ay u sameyso laakiin xataa dadkii aa soo bursheen markaasi laana waxay isdhaheen ninkeeda xanuunsan ama iidan jiranii keentaa marka sidee saas mar walba u samey jirta saas u samey jirta markaa lasoo burshay xaaska ayuub calayhi salaam waxay u dhahday ayuub ilaahay subxaana watacaala ducadaada adig mustajaab waa inuu ilaahay ku caafiyo markaasoo ayuub ugu jawaabay ilaahay subxaana watacaala 7 sano oo igu nimceehay waxaa raba heystay fa hadda ma sabri kara miyaa 7 sano kale markaasi ee zawjadiisa mar walba u sabri jirta ee mar walbana ee garab taagnaa jirta markuu hadalkaas u dhahay iyo ka horba way garab taagneed marka meelo ambis kale qaawiil aa jiraan oo ah والله أعلم إن زوجة أيوب عليه السلام تنتهي قدي تنتهي أقيبسي لبا قيبوت قيب jartay waxay ka gaday gabdhaha taajiriinta markaas amal sida ugu hesho cunto qaybta kalena waxay ka gaday gabdhaha kale gabar kale yani dadka kale dad taajir ah gabartooda ka gaday sida ugu hesho daawada ninkeeda markuu nabiyullah ayuub calayhi salaam oo arkay xaaskiisa inay tinteeda gaday aad iyo aad u xumaaday aad iyo aadoona u ilmeeyay markaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo duceeya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka kor qaado ibtilaa'a ducada duceysta nabiyullah ayuub calayhi salaam waxaa waa duco anaka mar walba ku duceysana waxaa waa ducada rabbi innii masaniya darro wa anta arxama arraaximiin sida aayadda kariimka ee uu dhahday wa ayuuba id naadaa rabbahu innii masaniya dur wa anta arxama arraaximiin ducadiisana si edeb ah si oo fiican oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu dalbaday ducada ayuub calayhi salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ugu istajiibay woona faraj khayr qaboona u furay sida aayadda kariimka ee uu dhahday اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فإله سبحانه وتعالى وحكو أمر لوقتيسا إنو كدفتو دولكا سيدي بيئو صوبحان أو بيهاسي أو مرصدو سيدو جركيس أنان أفعنادو وونكو عافي ماضي إله سبحانه وتعالى أنو ابتلاء وكقاضي أولاديس أو إلهي كو ابتلاي إي أهل كيس إي دمان إله سبحانه وتعالى وأسو عليه ونسيه سيدة آية كريم كي ولهذي ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب سيدو إله سبحانه وتعالى أولاديس أيوب عليه السلام لو سو عليه علماء سوى القف والبسيء وفسرته فصلka koowaad waxaa la dhahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nolosha ku soo celiyay ambis kale oo yani noloshooda oo ku soo celiyay oo soo mar kale oo soo yani soo celshay dhimashada ka soo noqdeen sidee u dhaheen ibn Cabbaas iyo ibn Mas'uud iyo Mujaahid sidee u dhaheen tan labaadna wuxuu yani waxay dhaheen ay u fasireen culimada in laga dalbaday ambis kale oo la dhawlo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dhahay in jannada ilmihiis u joogaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo kale adduunyada ku siiyo tan saddexaadna loo fasiro waxaa waa in ajirka caruurtiisa oo ku dhinteen adduunyada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhirada ugu dhigo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin nimcooyinkiisa haysto dhan oo dabal ugu dhigay wax kastana u soo celiyay caafimaadkiisa iyo irsiqiisa iyo taajirnimadiisa iyo wixiisa dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo celiyay marka qisada ayuub calayhi salaam maanta maxaan ka istifiidi doonaa waxaa ka istifiidi doonaa wax walba kugu dhacaan ibtilaa xanuun ha ahaado jiro ha ahaato ilmahaaga ha xanuunsanaan ninkaaga xanuunsano naf ahaantaha xanuunsato wax walba inay tahay imtixaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sabarkaaga oo ku arkaayo inay ku shukriyeysid ama bis kale inay ku caasiyeysid talabaadna hadduu ilaahay yiraaho oo ka faa'iideyna qisadeena maanta waxaa waaye inaad wax kasta oo haysatid mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ku shukurtid oona sadaqadaada badsatid sidoo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhowti markay shiddo ku qabsato sidaa ugu baxsatid sidaana ilaahay yani raalinimadiis ama ridaa'iisa oo heshid markaste fa dhammaantiina meel walbaa joogtaan waani salaamay fa haddaa saxay qisada فهو من يعني إله سبحانه وتعالى يقول توسية هدا قلدنا شيطان كواي فدمانتين ميول باجوكتين وان السلامي وان جعلها
kusoo dhawaada channelka mar kale bari iyo qisada cusub insha Allah oo baradon iyo nabi cusub baradon oo ilaahay yiraaho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh